وليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري لن يهنأوا أبدا في موطن الطهر لن يهنأوا أبدا في موطن الطهر سنثور بركانا ونكون كالجمر سنثور بركانا ونكون كالجمر يا دولة الكفر بعلوجك الكثر يا دولة الكفر بعلوجك الكثر لن نرتضي يوما بالذل والقهر لن نرتضي يوما بالذل والقهر بارودتي بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي وبجعبتي كفني بغداد فانتظري فجري ولا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر يا كلن كان إنه كدي وكلن بركيسن إلهينا سبحانه وتعالى نحرستي سو كسودجيه وحن إلهي كبر يا قلبي عرفك بين كسو وكلمة حقه إلهينا سبحانه وتعالى قلبي يدين يدقيه إنه إلهي أفره نغانا دي وكوه هذا الكدقيستكيس وناكسن نقاطه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب انت كذب waxaan u ballansanayn qaybtii labaad ee muxaadaradii ku saabsanayd fi taariikhi duruusun wa cibar taariikhda waxaa ku sugan casharo iyo cibro qaybteedii hore waxaan kaga hadalnay muqaddimaadkii iyo hordhacyadii iyo bilowgii macrakadii cayn jaaluud ama dagaalkii faasilka ahaa kala baxa ahaa dagaalkaasoo dhex maray muslimiinta iyo nimankii la oran jiray tataarka ee muqulka ah qaybahan caawa markaa ka hadli doono koo waxa weeye wax yar inaan dul marno qaybtii hore ilaa meeshaan soo gaarnay ثانيا inaan ka hadalno wax yar iyadana ka taabanno bilowgii nimanka la yiraahdo mamaaligta oo nin ka mid ah ama boqor ka mid ah oo ahaa ninkii hogaaminayay dagaalkaas dhinaca muslimiinta ee la oran jiray al-malik al-mudaffar sayfuddin qutus rahimahullahu ta'ala waxaan kala wax yar ka taaban doonaa dowrul ulamaa fi al-jihad dowrka culimadu ay ku leeyihiin jihaadka gaar ahaan macrakadaas iyada ah iyo marxaladaas aadka u adkayd ee muslimiinta soo martay iyo dowrkii suldaan al-ulamaa Izzuddin ibn Abdissalaam suldaan al-ulamaa rahimahullahu ta'ala waxaan ku soo khatimi doonaa macrakadii sida ay u dhacday iyo goobtii inaan isku dayno bal inaan sawir ka bixino dagaalkaas sida uu dhacay arrinka shanaadna waxaan ku soo khatimaynaa duruusta iyo cibarka laga qaadanayo macrakadaas iyada ah qayb ka mid ah insha Allah ta'ala waxaan soo sheegnay nimanka tataarka ah iyadoo dawladda islaamku taqriiban ay daciiftay dawladdii cabbaasiyada ee Baghdad saldhigeedu ahaa iyadoo daciiftay dawladihii dhinaca mashriqa ama xagga bariga ka xigay ay ugu weynayd dawladdii khawaarizmiyada la oran jiray iyaduna dacfi u galay oo boqorka ka ahaa ninkii la oran jiray Maxamed ibn Khawaarizm Shah
dowladdaas dowlad aad u ballaaran ahayd dhul badan oo hadda dhulka muslimiintu ku nool yihiin dhulkan Russia iyo China iyo Afghanistan iyo Pakistan iyo Iran intaas oo dhanba ku fadhiday dowladdaas khawaarizmiyada marxaladaas ayay soo baxeen nimanka Tataarka la yiraahdo waxayna ka soo bilowdeen saan sheegnay China waqooyigeeda Mongolia gobolka la yiraahdo halkaas ka soo bilowdeen sanadku markuu ahaa 603 sanadka hijriga ah waa qarnigii 7aad horaankiisa weerar bay soo qaadeen ballaaran waxa ah niman aad u dagaal adag aad u tiro badan waxashnimo u dagaalamo oo waxba aan reebihayn waxay arkaan yar iyo weyn laynaya waxa niman dagaalka aad ugu maman oo ku noqday baariciin boqorkoodii koowaad Genghis Khan baa la oran jiray dabadeedna sanado kooban ayuu wuxuu soo gaaray xuduudda khawaarizm dowladda islaamka ahayd oo khawaarizm markii hore iyaga iyo isaga waxa u dhaxeeyay heshiis yar oo aad u jilicsan laakiin wuxuu ku fikiray ninka la yiraahdo Genghis Khan oo u malabsanay inuu ku soo luga ballaarsado xagan dowladaha islaamka ah ee khawaarizm laakiin indhihiisu waxay u jeedeen al-khilaafa al-Abbaasiyya iyo Baghdad sidoo u qabsan lahaa laakiin Baghdad si uu qabsado waa inuu marka hore soo maraa dhul badan oo muslimiin ah oo ku xeeran oo ka xiga Baghdad ka xiga oo dhulkaas Afghanistan iyo Iran iyo dhulkan Turkmenistan iyo Tajikistan iyo Kazakhstan dhulkaas oo dhan ay ku fadhiday dowladdan khawaarizmiyada wuxuu raadiyay marka sabab iyo cudurdaar oo ku helo dagaal oo la galo khawaarizmiyada dagaalkaas wuxuu ka bilowday say leeyihiin koox tujaar ah oo ka socota Tataarka ayaa waxay timi magaalo madaxda khawaarizm Organda ayaa la oran jiray magaaladii bay yimaadeen gobol ka mid ah gobolada markay marayaan ninkii gobolka joogay ayaa nimankii laayay nimankii tujaarka ee Tataarka ah taariikhdu waxyaalo badan bay qoraysaa waxay leeyihiin maxaa sabab u ah ninkan inuu nimankan laayo qaar waxay leeyihiin jawaasiis buu arkay qaar waxay leeyihiin ma dad hore ay laayeen buu lu dilay qaar waxay leeyihiin ma Genghis Khan laftigiisa intuu dad u soo diray laayay si uu cudurdaar uga dhigto inuu dagaalka bilaabo nooc kastaba ha noqotee arrinkaas markuu dhacayo nimanka la laayay warqad degdeg u soo diray wuxuu nimanka la ii soo dhiibeen nimankii laayay laakiin arrinka khawaarizm uma jawaabin oo wuxuu yiri nimanka halkan aan ku muxaakamaynayna dabadeed wuxuu soo qaaday dagaal marka Genghis Khan sidaas ay ku bilaabatay dagaalku marka dawladda islaam dawlad daciiftay oo lafaha ay ka gashay dacfi iyo taraf iyo dulmi badan oo dhaxdooda ka shaacbaxay arrimahaas oo dhammi waxay keeneen ummadii inaanay wax badan hor istaagi karin cadawgii ku soo duulay dulmiga ka dhex shaacbaxay tafarruqa dhexdooda iyo kala daadashada dhexdooda ka taagan iyaga oo aan isu gurmanayn oo istaageerihayn marka waxay noqotay inuu soo duulaan soo qaado dhaweyn maalinba magaalo inuu qabsado sidaas aan sheegnay oo habeenkii hore kaga sheekaynay oo caalam islaami dhinaca mashriq ahaayo dhan khawaarizm uu ku soo durduriyay tataarku uu ku soo durduriyay wax badan oo muslimiin oo malaayiin gaarayana ay ku soo laayeen magaalooyinka qaarkood sida magaalada Ray oo kale waxa leeyahay 700,000 ayaa lagu laayay magaalada Bukhara markii ay galayeen qabsanayeen iyo Samarqand mid walba in ka badan 70,000 ayaa lagu laayay qoorta loo gooy ciidamadii ka horiyay magaalada Balkh ee dhulkan Afghanistan hadda ku taala waxa lagu dilay in ka badan nus milyan 500,000 in ka badan bay ku laayeen oo ku dileen ku gowraceen ilaa ay soo gaareen xuduudda Iraq iyo Iran markaas waxay soo gaareen magaalada Hamadan la yiraahdo dhulkan Iran ku taala halkaas uu muaskarkii ka samaystay si uu ugu takhtiidiyo marka Baghdad si uu qabsan lahaa waxa weeye taariikhu yuciidu nafsahu marka ay rabaan meel inay soo weeraraan waa inay helaan mowdic qadam meel ku dhow oo ciidanka lagu soo ururiyo si marka meeshaas loo qabsado magaaladaas loo qabsado
hamadaan ayuu ciidan ku soo ururiyey. hamadaan baqdaad waxay u jirtaa dhinaca bari 450 kilomitir bay ka xigtaa, dhulka iiraan bayna ku taallaa hadda. halkaas markuu ciidankiisa ku soo ururiyey muddo dheer oo 6 sannadoodana uu u takhdiidinayay siduu u qabsan lahaa baqdaad, ayuu maalintii dambe ciidamadii ku soo daayey. 5 dhinac baa laga soo weeraray baqdaad. marka baqdaad sidaasay gacanta tataarka u gashay. wixii ka dhacayna habeenkii waan sheegnay oo 1 milyan oo dada sida ay leeyihiin ibnu kathiir fi lbidaaya wanihaaya iyo ibnu alathir fi lkaamil fi taariikh, siday leeyihiin 1 milyan in ka badan ayaa lagu laayay magaalada baqdaad oo muslimiina, oo shacabkii iyo culimmadii iyo dadkii joogay oo dhan isugu jiray. arrinkaas markuu dhacay baqdaad ka soo gudbeen. baqdaad cidi uma soo gurman. muslimiintii kale oo joogay ama shaam ama falastiin ama masar cidi uma soo gurman baqdaad. gaaladu sidaasay ku cuneen. dabadeedna waxay u soo fidsadeen xagga shaam. shaam ayuu haddana ku soo durduriyey, iyo lubnaan iyo falastiin, dhulkaasoo dhan ayuu soo qabsaday. dhulkaasoo dhan markuu soo qabsaday waxay noqotay masar oo keliya sidaan soo sheegnay inay u harsan tahay. masar marka xaaladdeeda waataan sawirnay. waxa weeye say ku bilaabdeen nimankan mamaaligta ahoo ninkan sayfudiin qutus siduu ku yimi. waa qodobka labaade. wax yar haddaan isagana ka tilmaanno waxa weeye dhulkan shaam iyo masar iyo xijaaz iyo yeman waxaa haysan jiray nimankii ayuubiyiinta ah, salaaxudiin alayuubi durriyadiisa. dowladdaasaa intaa ku ballaarsanayd. masar iyo shaam iyo xijaaz iyo yeman iyadaa ku fadhiday. markii salaaxudiin uu dhintay raximahu allahu tacaala, wiilashiisii iyo wixii ka dambeeyay dowladdii way sii daciiftay, wayna kala go'go'day. masar goonni bay noqotay, shaam goonni bay u go'day, yeman goonni bay u go'day, xijaaz goonni bay u go'day. waxa kaleeto oo sii kala go'go'ay shaam baa sii kala go'go'day. iyaduna waxay sii kala noqotay dowlado yaryar oo magaalooyin ku kooban. dimashq dowlad bay noqotay, ximis dowlad bay noqotay, xalab dowlad bay noqotay. saasay u go'go'een. dowladaha daciifka ah markay xaaladoodu gaarto markaasoo kale weeye marka gaaladu ay cunaysa. arrinkaasu taariikhda uu soo noqnoqday. wuxuu kaloo ku soo noqday dhinaca andalus markii dowladda muslimiintu ay daciiftay ee marxaladii laga baxay umarada, marxalatu al-umaraa, nimankii wulaadda ahaan jiray ee khilaafa alcabaasiya iyo khilaafa alumawiya markii hore ka socday. taasu markay dhammaatay waxaa bilaabatay alkhilaafa alumawiya fi landalus. khilaafa alumawiya fi landalus markii ay dhacday waxaa bilowday duwaylaatu tawaa'if, bimacnaa magaalo walba inay noqoto khaliifo inuu ka jiro ya amiir almu'miniin. sidii ninkii shaacirka uu yidhi mima yuzahidunii fi ahli andalus asmaa'u muctasimin wa mustansir, أسماء مملكة أو ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يعني وحان ليا بيبوي ولا عجبية أو أن أنعي أندلس أن كنعي مقعية المستعصب إيو المستنصر بالله إيو مقعية وين أو فخمة، لكن وحبك هوسين وحك هوسين مجرى يا وتولوين يرير ومقالة والبؤجوجه نن أمير المؤمنين شاقنايا كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. مكلال أما بصد صدا وتقانيه هر يعني يسمى لنا اللباح مركز يسنيفسو يسفورسو لباح يسمى لنا ساسو كلا أهاين بصدي أهاين لباح يسمى لنا ندوى الباوع الله بحياة أمير المؤمنين الملك الرئيس الأمير الكذا 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 ألغاب أن معنا الله مشرقنا ساسا كذا عضي أول شام كلية أيا وحي أوجوجوضي waxay noqotay magaalooyin yaryar. dimashq dowlad, xalab kada saasay uga qooday. marka dowlad ayuubiya saasay uga qooday. dowladahaas tataarkii orod bay ku soo mareen. marka waxaa waliba la yaab leh inay nimankaasu tataarka walaa u qadimeen oo cumalo u noqdeen. muslimiinta xataa inay u jaasuusaan, ciidamadoodii inay ku daraan, laakiin arrinkaas waxa uma tarin. markii ay soo istaageen tataarku baqdaad oo ay baqdaad gacantooda gashay, nimankan way u kala ordeen. umarada ee daciifka ah ee aan waxba haysan magaalooyinka xukumaa, tuulada xukumaa, way u kala ordeen tataarka. mid walba intuu tegey ayuu maaragtay tusbaxa u dhiibay oo uu yidhaha ha ku dhaafo adiga tataarku yuu cagta ku marin. laakiin tataarku waxay niman aan naxariistaas iyo arrinkaas aan aqoon. sideedabana taariikhdu
dadka qaswiga sameeya cumilada uma naxariistaan dadka wadankooda iyo shacabkooda iibiya uma naxariisataan dadka ay u shaqeeyaan uma naxariistaan iyaga ka takhallusa iyaga duleeya iyaga baabi'iya marka khasira dunya wal aakhirah baa ku dhacda daa'iman saasu adduunyana ma helaan oo mulki ma haystaan aakhirana way khasaareen waxa ku dhacday nimankii shaam sidaas ku dhacday wadankii laga wareegay masar baa soo hartay masar markii tahdiidkaas uu ku yimi si xaaladeedu ahayd dawlatul mamalik say ku bilaabatay waxay ku bilaabatay nimankaas ayuubiyiinta ayaa cariga xukumi jiray sanshay masarna dawlad gooni noqotay ayuubiyiinta xukumay nimankaas markay dhamaadeen ninkii ugu dambeeyay الصالح نجم الدين الصالح أيوب بلديهج نقاسو مركو دنتي gabar waxa jirtay jaariyadii saahid markii damana uu guursaday oo shajar dur la yara haweenadaas way qarisay dilkiisii maxay la marka dagaal baa socday dagaal niman saliibiyiin ay ka soo qaadeen Faransa oo uu hogaaminayo Louis Tasa boqorkii Louis kii sagaalaad ee Faransiiska xukumi jiray ayaa xamla saliibiya ku soo qaaday Masar waana lagu jabiyay ilaahi fadligiisna isagiina waa la qabtay asiir ahaan baa loo qabtay waa la qafash دار ابن اللقمان ميلا يلها قاهرة كذا والله حرة في المنصورة هل كاسا لغو حرة مرضى منا فيديو وين بلغو سيداي أو مدح فرشاء آد وبلارا أي لغو سيداي هوين إذا سودقال كاسو حبيك إدارين يسيو وحي أهيد نينكا مركو دنتاي عيدان كينا الدقال وكجرو ويلكيسي أو إساقو بقرن ماذا قبان لهانا مقايا توران شاه بلدي جري ميل مقالة كبحسن وكو مقنع way qarisay dilkiisi ama awaamirtana waxay soo saari jirtay iyada soo bixin jirtay khatamkay ku dhifin jirtay waxay u dhiibi jirtay wasiirka odagi waa xanuunsan yahay waa ma soo bixi karo maanta oranas odagi ma soo bixi karo maanta waa xanuunsan saasay si aanay ciidanka u niyad jabin dagaalku waa lagu guuleystay alxamdulillah marka ka bacdi bay sheegtay wiilkii markuu yimi madaxtinimadii isaga la wareegay haase yeeshee wiilkii kuma si nagaan meeshii wiilkii waa la dilay ala kulli xaal waxay ku soo wareegtay haweenaydaas iyadu inay muddo xukunkii ay iyadu isu magacawdo suldaanad inay tahay laakiin arrinka muslimiintii ma aqbaleen culimadii iyo muslimiintii iyo dadkii oo dhan ma aqbaleen ilaa heer ay uga soo diraan Ciraaq iyo meelaha inta laga soo xiriiro la yiraahdo war haddii rag iyo Masar ka dhamaadeen maad noo sheegtaan rag aan idin soo dirnay taas suldaanadii gabadha suldaanad ka dhiganaysaan shajara duray heerkaas markay gaartay aad loogu kacay waxay damacday marka inay min waraa istitar ka xukunto inay ninna meesha taagto iyaduna haweeney waxay aad u nufuud badan powerful khatara gadaal inay iyadu ka xukunto isagana mid ay horay taagto ay adeegsato ay raas nin marka mamaaligti kamida ay guursatay oo Ciisadin Ebek la yiraahdo ninkaas ay guursatay ninkii baa waxay ka dhigatay sitar laakiin ninkii ma noqon nin waraaqda saxiixa oo la adeegsaday kursiga markuu ku fariistay isaga wax walba maamulkiisa samaystay ciidan buu samaystay nin adag buu noqday way ka takhallustay marka maamari u degtay ninkii waa dishay ala kulli xaal qisadii waxay ku soo dhamaatay iyadiina ninkan haweenaydiisii iyo wiilkiisii oo yar qoladaas ayaguna ka intiqaamay labadii mamaalik uu isagu samaystay iyo mamaaligtii hore oo Najmuddin Ayyub laba xisbi bay kala ahaayeen marka qoladii marka xukunka qabsatay waxay noqotay qoladii isaga taabica u ahayd waxaana kamid ahaa Sayfuddin Qudus rahimahullah marka ninkan Ciisadin wiilkiisu markuu ku fariistay xukunka 15 jir buu ahaa nin saan hore u sheegnay marxaladii hore nin xukunka wadi kara ma ahayn oo ka adag saas darteed culimadii iyo dadkii ahli xalli iyo aqdigii buu shiriyay Qudus in xukunka ninkan laga wareejiyo isagana wasi u ahaa oo wakiil u ahaa sidaas uu xukunka isagu ku noqday boqor ku noqday Sayfuddin Qudus waxaadna moodaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu talagalay maqaadirtaas inuu macrakadaas faasilka ah ee tataarka nin uu qalmo oo arintan hogaamin kara uu hogaamiyo 11 bilood kaliya ayuu xukunka hayay Sayfuddin Qudus faqad 11 shahr 11 bilood muddadii uu xukunka qabtay ilaa markii uu dhintay oo macrakadaas uu ka soo baxay mamaaligta marka saasay boqortooyadooda ku bilaabatay boqortooyo 270 sano socotay ayaa mamaalik dawlatul mamaalik baalka ka bilaabatay ficlanna
يعني بلوغ حقيقي أهي وحو دولة المماليك معركة لا يراهدو عين جالوت أي أنك شاكينينو أيا بلوغ أها مركز مصر إيه شام بقى بصدين دولة إسلام هو دولة المماليك لا يراهد أو نمانكاس الضوامضة أها تركي أصل كوضو أها أي حكومين وإساقات دنبيين أيا صليبيينتي دولة وحينا أهيد كل سن جهات كل سن oo saliibiyiinta iyo tataarkaba caalam islaami 3 qarni muddo ku dhow ka celisay oo ka waabisay ayay waxaanu imanaynaa marka دور العلماء الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى saanu ga sheekaynay horta waxa weeye isagu waa سلطان العلماء baa lagu magacaabaa oo laqabkiisu u yahay waxa laqabka u bixiyay للتاريخ ابن دقيق العيد الإمام ابن دقيق العيد وتلميذ كيساها أي سلطان العلماء كل قبي دبدنا لقب كاس تاريخ ذو قلي وحوهانين آد وعز بدن آد واعتزاز بدن علم كيسان جيسية وان حقا كوابا يسوى دمشقي يعني دمشق بكل شيء شام بقول تضباطا يتضبطي لكن دمشق مركو كجاري قاضي القضاة ومفتيه مسجد الأموي أو كخطبيه ننكي أيوبي هيستي دمشق أيا وحو مقالوين ككمل أو حكومي أيو وحو وقت تنازلي صليبيين هبكي مسلمين تنوك قضي أو فيرسو تاريخ هبكي مسلمين تنوك قضي مقالوين نووسي سلطان العلماء شيخا ومركز سلطان العلماء لما دي هجرين وحال دي هجري مصر مركو يميبا سلطان العلماء ولبح لقب كاس لبحيه الشيخ ما عندما خطبتي بوكا مسجدك أيو أرنكا كنقدي أو لا يجوز لهذا الملك بقر كان أمبنا عن دول كان مسلمين تا إنه وقت تنازل أو أوصيه قال هذا إنه أوصيه صليبيين تا أو وقت تنازل ساسي علماء أهاية علماء حقا كتاجن دينتا إني بيانيان وحكستو ديبا وكسو قارنا أي وجود لقاطها maxaa yeelay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ammaanada saaray iyo xilka marka sidaas ayuu u fatwooday markuu arrinka fatwooday ducadii loo ducayn jirayna wuu ka gooyay maalintaas markaasuu xiray xabsigu ku tuuray xabsiga markuu ku tuuray sheekhi cabaar buu xabsiga ku jiray magaaladii baa kacday waa la soo daayay sheekh wuxuu yidhi ha hadlin haddaba khudbadna ma jirto fatwana ma jirto laakiin bannaanka joog sheekhi markuu iskaga soo hijrooday wuxuu soo aaday Falastiin iyo Quds halkaas xaggaas soo aaday Quds bay kaga daba yimaadeen maalin maalmaha kamida ninkaas Ismaaciil ibn Ayyub la dhihi jiray isagoo saliibiyiinta sasabanaya oo Quds la jooga ilaan meelahan aagagaas iyaga haystay ayuu wuxuu ku yiri nimankii saliibiyiinta ah sheekhi buu rag inta u diray buu yiri hal soo xiro markii hore wuu sabto wuxuu yiri bal sheekh aniga isaga heshiisiye oo ha ii yimaado gacanta hayga dhunkado kaliya hal mar wixii horena hal ka raali geliyo waxaan u celinayaa muftinimadiisii iyo khatiibnimadiisii iyo shaqadiisii oo dhan nimankii baa u yimi markaas ay yiraahdeen adiga iyo boqorka in leedin heshiisiyo oo shaqadaadii oo dhan lagu celiyo oo dhulkaagii lagu celiyo waxa ka xigta inaad boqorka inta u tagto xogaa raali gali gacantana ka dhunko خلاص wax walba la baabiyo warnaga tagaway yaa masaakiin niman yahum miskiinada ah wuxuu yiri wallahi ma arda an yuqabbila yadi fa kayfa an uqabbila yadahu gacantayda inuu isagu dhunkado raali uga ma yahay buu yiri seebaan anu gacanta u dhunkanaya gacantayda inuu dhunkado raali kama yahay marka aniga idinka waadi baa noo dhaxeeyo yiri iga taga bayni wa baynakum waadi ya qawm antum qawmun maftunun marka nimanka saliibiyiinta ah wuxuu ku yiri ninkan Ismaaciil Ayyub يعني بلدتك عملاء هيرك أي كجوجان عدوج أي وأديجيان فيري إهانة ده سمان والبوي كود عضا عملاء وحكويري نكن موجودا ماشان كحران ها وحوير علماء يدا وين بكم بدياي وحن أصلا حري تعامل كان إننا أيوه رستاج إن أنا إذا لا تعامل إذنك أيو معارض كويه أيوه رستاج waxay ku yiraahdeen annaga hadduu shuyuukhdayada baadariyada kamid ahaan laha kanoo kale lugahan u dhiqi lahayn beera lugaha ayaan u dhiqi lahayn طبعا dulligu iska aamusay sheekhaasuna wuxuu ka qaatay iyo culimadii kaleeto marka Masar buu soo aaday Masar buu mu'assas ku noqday
masar baa qaadi alqudaat uu ka noqday waa ninka umaradii iibiyey mamaaligtii buu gaday markaasuu baytulmaalka lacagtoodii ku shubay marka baa'icu lumara baa la yidhahda suldaan alculamaa alqaab badan buu leeyahay calaa kulli xaal culimmadaasuna door weyn oo ninkaas uu ka mid yahay door weyn bay jihaadka ka qaateen waxaan u imanaynaa marka hadda qaybtii ugu muhiimsanayd oo caawa aan u ballansanayn oo ah dagaalkii iyo sida uu dhacay intaanu masar ka soo bixin quds wuxuu qabtay majlis istishaara wuxuu qabtay kulan wada tashi ah umaradii iyo raggii mamaaligta ahaa ee umarada ahaa ayuu ururiyey iyo madaxdii iyo culimmadii wuxuu yidhi arrinkii buu uga warramay tataarka iyo risaaladii timi oo ay soo direen 4 nin waa kii dilay xaaladdaasaan ka yeelayno nimankii waxaad mooddaa xoogaa cabsi iyo waxaas inay gashay intuu ku xanaaqay oo qaydayey buu wuxuu yidhi ana alqa tataara binafsi haddaad diiddaan keligay baa aadaya tataarka ayuu yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi ilaa iyo goorma ayaad cunayseen baytulmaalka muslimiinta oo xoolaha muslimiinta aad cunayseen maanta umaradoodii idinka ahee inaad difaacdaan haddaad u kici weydaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qadabkiisa ayaa idinku dhacaya marka nimankii aad buu u wacdiyey waa aad bay hadalkiisii ugu ta'aureen ama uu u saameeyey kulligood oohin bay la hogteen dhammaantoodna way la duubteen go'aankii uu gaaray marka wuxuu ahaa in cadowga ay u baxaan oo xagga shishe ugu tagaan oo meelaha uu joogo hadda falastiin inay kaga hortagaan aanay ku sugin masar arrinkaasna ra'yiga uu u soo jeediyey wuxuu ku dhisnaa horta ammaankeenna wuxuu ka bilaabanayaa xaggaas gaalada inaynu ugu tagno ayaa amnigeennu u ku jira aaniyan dagaalka waa inaynu u rarnaa dhulka uu joogo tataarka maaha inaynu gudaheenna u soo rarno oo masar gudaheeda uu inoogu yimaado arrinka saddexaad waxa weeye cunsurka mufaaja'ada annagu inaan yeelanno yacni kediska aan ku kedinno oon dul tagno waa inaan annagu yeelannaa wakhtiga iyo makaanka dagaalku ka dhacayana waa inaan annagu doorannaa taasna waxay muhiim u tahay inaynu inagu ugu baxno xagga ugu tagno arrinka afraad waxa weeye walaalaheenna muslimiinta oo meeshaas ku dhibban inaynu u gargaarno sidaas darteed arrinkii waxaa lagu wada go'aansaday in loo baxo oo loo tago nimankii halkaa lagu aado marka meel saalixiya la yidhaahdo ayaa ciidankii lagu ururiyey oo mucaskarkii noqday qaahiro ka baxsan ee dhinaca siina iyo ghaza xigta halkaasaa lagu ururiyey ciidankii oo mucaskarkiisu noqday ilaa ay soo dhammaystirmeen markay soo dhammaystirmeen ayaa waxay noqotay inuu markaa falastiin u baxo wakhtiga uu baxayo waa bilihii ugu kululaa bisha juulaay yacni wakhtiga hadda bisha 6aad ama bisha 7aad oo kale shacbaan horaankeedii bay ahayd sanadku markuu ahaa 658 ciidankii laba u kala qaybiyey qayb hore wuxuu u dhiibay ninka la yidhaahdo baybaris waana sheegnay ruknudiin baybaris wuxuu raggii isaga mucaaridka ku ahaa mamaaligtii xisbigii kale tusay ka soo horjeeday buu ahaa laakiin dagaalka markii la isu diyaargaraynayay ayuu u yeeray waana soo dhoweeyey wuu karaameeyey ciidankana qaybtii ugu muhiimsanayd ee horaanka ahayd ayuu u dhiibay maadaama uu ahaa nin aad iyo aad dagaalka khibrad aad ugu leh oo dagaaladaas hore oo saliibiyiinta ka soo qayb galay hogaamiye weynna ahaa ciidankii tataarka dhinaca kaleeto markaan ka fiirinno wuxuu mucaskarkiisu ahaa meesha la yidhaahdo albaqaaca ee lubnaan ku taalla hadda halkaasuu mucaskarkooda weyn ahaa holaako oo ciidankaas isagu hogaaminaya durriyaddii jenkiis khaanna ah boqorradooda waaweyn ka mid ah umaradooda waaweyn waxaa dhintay boqorkoodii ayaa dhintay boqorkii markuu dhintay holaako ragga damaca kaga jiro boqornimada ayuu ahaa ciidankii wuu ka tegey wuxuu uga tegey katabqa ninka la yidhaahdo ee hogaamiyaha koowaad ahaa ayuu ciidanka uga tegey horena aanu sheegnay oo raggii baqhdaad ciidankay wax ka qabtay ahaa hogaamiyaasheedii ayuu uga tegey nin markaas dhowr iyo 60 jir ah ayuu ahaa ninkaas yacni ninkan gaalkan leeyahay tatariga ah ee katabqa la yidhaahdo muddo ugu yar 40 sanana wuxuu ku jiray dagaal buu ku jiray dagaaladii tataarku 603 ay soo bilaabeen 618 bay dagaalkii ugu horreeyey iyaga iyo khawaarismi uu dhex maray haddana waxaa la marayaa 658 waa muddo 40 sano ah 40kaas dagaal buu ku jiray marka nin khabiir u ahaa ninkaasuu ciidankii uga tegey wuxuuna ahaa tatari waliba nasraani ah oo diinta nasaarada qaatay buu walidaalka taxaaluf buu la lahaa qaar ka mida saliibiyiinta oo way la socdeen
ciidankii hordhaca ahaa ee uu soo diray sayfadiin qudus oo qaybta uu hogaaminayay Beybris ciidan xoog badan buu ahaa maaha sahan kaliya ciidan aad xoog badan oo qayb weyn ah oo uu hogaaminayo Beybris ciidankaas iyo isagu cabaar bay kala dambeeyeen si uu u ilduufiyo mukhaabaraadka nimanka Tataarka oo ay uga warhelin xaqiiqada tirada ciidanka muslimiintu inta uu yahay oo ay u malayaan ciidankan hore kolayeen ciidankaas uu hogaaminaya ninka la yiraahdo Beybris markuu soo gaaray Gaza meeshaas la yiraahdo ciidankii Tataarka meesha joogay oo koox yar xaamiyada meesha joogtay ilaala ayay isku dhaceen guushii ugu horeysay bay halka muslimiintu ku gaareen markii Tataarkii halka lagu jabiyay waxay noqdeen in yar oo ka firxatay moohane intii kale meesha lagu baabiyay firxadkii ayaa albiqaa ugu tagay Lubnaan ugu tagay iyagoo fakada carara ayay waxay ugu tageen Katabqa waxay ugu tageen Lubnaan iyo biqaa halkaas ay ugu sheegeen rafaadkii iyo dhibaatadii gaartay iyo ciidan adag inuu ka yimi Masar halkaas iyo Gaza uu hadda marayo dagaalkaasna uu ku jiro halkaas uu marka Katabqa cara isagoo ay hayso oo ka soo dhaqaaq ninka la yiraahdo marka Quds wuxuu tagay Ayn Jalut inta aanu tagin Ayn Jalut waxa jidkiisa ku oolayd magaalada la yiraahdo Akka waan soo sheegnaa umaleynaya Akka waxa haysteen niman saliibiyiina marka Akka maadaama dariiqiisa tahay nimanka saliibiyiinta heshiis buu la galay inaan iyagu isdaardaarin maadaama uu isagu hadda u socdo Tataarka taasuna waa siyaasad sharciye oo cadowga in la kala jabiyo oo gaalada qaar la heshiiyo qaar la jabiyo qaar dhinac loo kala siiyo qaar xoolo la siiyo qaar wax loo ballan qaado qaar si qolada marka aad rabto inaad target garayso oo aad iyaga la dagaalanto kaligood ay kugu soo banbaxaan hadhow haddana marka qolooyin kale aad hadana ugu jeedo siyaasadii nabigana kaleey salaatu wasalaam saasay ahayd oo gaalada saas u kala jabin jiray mushrikiinta marka qoladaas wuxuu la galay heshiis buu la galay markii heshiiska la galay rag asxaabtiisa kamida oo heshiiska ku jira magaalada Akka soo arkay ayaa dhagta ugu sheegay waxay yiraahdeen magaaladu waa dagan tahay nimankan saliibiyiintana waxay hadda heshiiska noola galeen awalan waa dacfi baa haysta xaaladu dacfi bay ku jiraan thaniyan waxa weeye heshiiskan ayay hadda ku kalsoon yihiin oo dagaal xageena kama filanayaan haddaan ciidankan ku leexino magaalada dhan waa qabsan karnaa wuxuu yiri anagu heshiis kama baxno muslimiin baan nimanka heshiis baan la galnay heshiiskan la galnay jabin mayno nahnu la naqdir qadri ma samayno yiraahdo marka taasuna waxay ku tusinaysaa akhlaaqiyadka dagaalka islaamka ama jihaadku inuu yahay jihaad akhlaaqiyad oo ballanta ilaaliya oo ahdiga ilaaliya oo dadka gaalada xataa ahdi iyo ballan haduu la galo ballantiisa aan ka bixin ila sida dadka muslimiinta ay tahay xagee ku taala Ayn Jalut waan sheegnay meeshii uu doortay ay ku taalo waxa weeye meel u jirta 65 kilomitir magaaladii meeshii Xittiin ee ka dhacay dagaalkii Salaaxudiin al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala uu ku furtay magaalada Quds waxa kale oo u dhow oo 60 kilomitir xagga galbeed ka xiga meeshii ka dhacday macrakatul Yarmouk dagaalkii Khalid ibn al-Walid iyo Abu Ubaydah ibn al-Jarrah rahimahum radiyallahu ta'ala anhum ay hogaaminayeen waqtigii ahdigii Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lix qarni markaa ka hor meeshaas wuxuu arkay Quds inay munaasib u tahay la yiraahdo Ayn Jalut haddana waxay u dhowdahay waxa koonfur ka xigta Mukhayyam Jiniin meesha la yiraahdo Falastiiniinta iyo Yahuudda hadda ku dagaalamayaan ayay hoos ka xigtaa wuxuu doortay togu waa tog furan hal albaab buu leeyahay dhinacyada waxa ka xiga geedo jiq ah iyo buuro taagag ah oo ciidanku ugu qarsoomi karo wuxuu yeelaa marka ciidankiisi ugu kala qaybiyay laba qaybood buu ka dhigay qaybta weyn wuxuu ku qariyay oo isagu hogaankooda watay buuraha gadaashooda iyo dhulka jiqda ah ayuu galiyay si aan loo dareemin qaybtii hore oo uu hogaaminayay Ruknuddin Beybrisna meel muuqato saaray si Tataarku ay u arkaan ciidankaas u malayaan ciidankaas kaliya inuu ciidanku yahay taasuna waxay xeeladii dagaalka oo waqtigaas uu adeegsaday Sayfadiin Qudus rahimahullahu ta'ala mowqici isaga meeshii fariistay Katabqa markuu arrinkii maqlay dabcan wuxuu ka soo dhaqaaqay buqaac Lubnaan buu ka soo dhaqaaqay Joolaan buu soo maray Lubnaan buu soo jeexay kor buu kaga soo degay Al-Jaliil Wadi Al-Jaliil buu kaga soo degay Falastiin kor buu ka soo galay halkaas uu kaga soo dhacay Jiniin sidaas wuxuu ku yimi Ayn Jalut Ayn Jalut 24 Ramadaan
sanadku markuu waa 658 ayuu ciidankiisii sidaa u kala ratibtay oo booskii dagaalku ka dhici lahaa bankan inuu noqdo toga ah ayuu doortay Qudus halkaasuna ku sugay katabga ay ciidankii tataarku way yimaadeen habeennimadii halkaas baa la isku horbariyay isla habeennimadii nin ka socda qolooyin muslimiin oo ku jiray ciidanka tataarka ilaahay baa askartiisa yaqaan meelay ku jiraan nin baa ka yimi dhinaca tataarka muslina niman ayuumiyiina la socday tataarka ninkaas wuxuu u yimi Qudus wuxuu u sheegay saddex arrimood buu sheegay wuxuu yiri waa marka koowaade tataarka xoogoodu sidii hore aad u maleeynaysan maaha saas darteed ha ka biqinina arrinka labaad dhinaca midigta ah oo tataarka maymanadooda ayaa xoog badan ku talagala saas darteed maysaradiina dhinacina bidixda ah waa inaad aad u xoojisaan arrinka saddexaad waxa ku jira ciidan uu hogaaminayo al-Ashraf al-Ayyubi ninkaas wuxuu ahaa ninkii haystay Xims magaalada Xims tataarkuna raacay oo la taxaalufay ninkaas wuxuu samayn doonaa inuu muujiyo inuu jabay oo ciidanka wuxuu samayn doonaa waa idin baqan doonaa marka halkaasna waxay noqon doontaa thaqra aad ka gashaan oo ciidanka tataarka aad ka weerartaan markaad aragtaan arrinkaasna ku tacaala saddex arrimood buu sheegay طبعا arrimihii waa arrimo sir ah oo khatar ah oo ciidanka tataarka ilaahay ka soo fikiyay ninkaas qolada muslimiinta ayadoo meesha ku jirtay arrinkaasuna cibradu wuxuu ku tusayaa mararka qaarkood inay ku jiri karaan dad ahdaaf kale leh ama waxyaalo kale meesha u soo raacay ama dhinacyo kale marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa yaqaan asraarteeda iyo junuudeeda muslimiintu sirtaa way qaateen laakiin xadarkooday qabeen maaha inay wada qaateen arrinkaas boqolkiiba boqol ku talagal macluumaadka way qaateen laakiin ku talagalkoodana way sameeyeen salaadii fajr marka la tukaday 25 ramadaan maalin jimcaha bay ahayd 25 ramadaan 658 waa maalin mashhuura waa maalin caan ah waa maalin taariikhda ka cayiman maalintaas islaamka ciidankii Baybaris oo buurt saarnaa tartiib buu u soo degay raacraac buu u soo degay katiib buu u soo degay marka ciidanka mamaaligtu wuxuu lahaa laba astaamood staanta koowaad waxay qaadan jireen uniform isku mid ah katiiba walba waxay qaadan jirtay uniform gaar katiiba walba nin amiir hogaaminaya uniform gaar ay qaadata marka taasuna macarakada waxay siinaysay is-aqoonsiga iyo kala bixidda iyo waxyaalo badan bay ugu talagali jireen arrinka labaad waxay ahayd waxay tumi jireen gurbaano iyo baaqiyo arrinkaas wuxuu ahaa sida baaqa halowga oo kaleeto maanta bimacnaa waxa weeye katiiba walba waxay leedahay baaq gooniya markii gurbaankaas laga garaaco amiirka agtiisa ama boqorka Qudus uu arrinka ku dhifto katiibada dhaqaaqaysa markii uu mid ku dhifto muayana oo cod gaar ah leh maymanada dhaqaaqaysa iska leh markii mid kale ku dhifto maysarada iska leh qoladaas dib u noqo waxay leedahay cod gaar ah hore u dhaqaaq waxay leedahay cod gaar ah muxuu dagaalka bilaaba waxay leedahay cod gaar marka arrimahaasuna waxay arrimo gaar nimankii marka katiibay u soo degeen waa markii ugu horeysay oo ruubi horta uu galo qalbiga tataarka nin baa ka sheekeynaya marka kutub taariikhda way dhigaysaa katabqa waa taagan yahay ciidankiisii xaggaas tataarka ku taagan uu u jeedaa nimankii saasay buurta uga soo daadanayaan togii bay soo geeyaan katiibay u soo degayaan marka wuu la yaabay midabkooda hubkooda quruxdooda siday u soo degayaan ayaaba ninka ruubi galisay mid dhinaciisa taagnaayo muslimiintii la socday kamid ayuu wuxuu ku leeyahay man haad واتما كتيبة كتيبة بيبرس هذا أنا كتيبة كلا سود جيس ما كهذا كتيبة أقوش ما كان متكلا سود جيس نينك الرعب بابا قالي أنت آن لا يسألك صعد مركي وقت العبار أي سعودي وعيدك أي كل صور ما ذين تبقى كتب قوح بلا بإشارة دي دقالك وهو الرئيس سقابل تتار وصور دقاجي طبعا عيدك تتاركم markii ishaarada u bixiyo qaa'idkooda nimanka indhaha yaryar oo balaayada wata oo koofiyadaha balaaran wata oo muxuu ahay farda gaar oo dheereeyo wata oo adduunka soo qabsaday ilaa Yurub ilaa Aasiya iyo qaylo iyo boor iyo sawaxan iyo waxay isku kicinayaan waxaan la arag oo la maqal ilaa dadku ayba iska baqaan oo marka ay soo dhaqaaqaanba dadku ay ruubi la cararaan ishaaradii markuu ku dhiftay sidii daadkii oo kale u soo daatay
طبعا عيدا لو قياسي بقولي 80 كن تروين كو يار بقولي 60 كن الى 250 كن هل مر بوادي سوسو رقمدي markay saa u soo rogmadeen Beybers ciidankiisa uu hortaagan yahay waa nin geesiya isma dhaqaajinayo ma degdegayo waa sugay nimanku ilaahay soo dhawaadaan markay soo dhawaadeen buu Allahu akbar ku dhistay labadii buurood baa isku dhacay gam laba ciidan oo aad u culus oo labaduba yaani qoladan tataarka ah waxa ka horeysa caro iyo ma waxa jira dad muslimiina oo seef idin soo qaadanayo idin ka hor imanayo idin la dagaalamaya waaba la yaabayeen waaba ajab ma waliba dad baa jira muqaawamo sameynaya see ku dhici kartaa taasi baa la yaabayeen ciil baaba hayab waxay leeyihiin maanta ciidankan aan lugta marin oo aan masarna qabsan muslimiintana aad bay u careysan yihiin oo waxa ka buuxa iyagana wixii muslimiinta la soo mariyay maanta waxa weey diintoodii iyo jiritaankoodii inay difaacdaan masar oo dhan ciidu kuma haray nin dagaalamay kara masar kuma haray حتى واحد dhinacyada taagan maalinta jimcada dadkii beeraleyda ah oo Falastiin meesha agaarkeeda degana dhinacyada waxay taagan yihiin buurahaas ay isku soo dhoobteen qaarkood wixii dumar ahaa wixii caruur ahaa wixii meeshay takbiirta ka wadaan iyaguna halkaas labadii ciidan isku dhaceen seefii baa isdhaafay dhiigii baa daatay madaxyadii baa dhulka lagu safay xaaladdu waxay noqotay xaalad aad u adag dagaalku markuu cabaar socday waxaa dhacday arrinkii uu sheegayay ninkii xalay warbixinta bixiyay oo ahayd maymanada tataarka ayaa ka xoog badan maysaradooda maxaa yeelay culays adag baa wuxuu soo fuulay dhinacii bidixda ee muslimiinta maysaradoodii culays adag baa soo fuulay marka halkaas markay marayso ishaaradii labaad buu bixiyay dagaalka marka wuxuu ka dhigay khidada saddex qaybood buu u qaybiyay Qudus khidada dagaal xeesha dagaalka ee balaanka lagu dagaalamayo marka koowaad ciidankan culus ee buuraha gadaashooda jooga dib uu u dhigtay wuxuu rabay ciidankan koowaad ee Beybers uu hogaaminayo inay dagaal istinzaaf ah oo idaaliyaan tataarka ay la galaan marka hore qoladan markay nimankaas ay daaliyaan niman oo xaalad ay soo gaarsiiyaan oo nafsiyaadkooda iyo moralkooda ay waxyeelayaan inuu marka ciidanka culus mar labaad soo galiyo marka inuu insixaab taktiikiya sameeyo oo jeeshkan Beybers uu dib u gurasho taktiiksan oo habaysan oo gudaha u soo gurto xagga toga uu u soo gurto si nimanka tataarka ay dhan loo soo galiyo toga gudihiisa khidada saddexaad marka ay tahay ciidanka weyn inuu soo dego toga meesha ka bixi lahaayna laga xiro oo la galiyo tataarka halkaas saasay marka khudadiisu ahayd khudadii qaybtii u horeysay marka waa lagu guuleystay oo waxa way ciidankii tataarka si fiican baa loo daaliyay dagaalkii barqay noqotay markaas ayuu Beybers wuxuu bilaabay insixaab taktiikiya oo habaysan isagoon baqashana loo arkayn laano nimankan way garanayaan niman waxa way dagaalka xaalad ku leh hadduu hal mar iska soo baqado way garanayaan meesha ay ku jirto taktiik uu ku jiro saas darteed isagoo dagaalamaya oo dagaalkii ku jira oo si adag u dagaalamaya inuu dib u gurasho habaysan u sameeyo si fiican oo baaric u sameeyo dagaalkaas oo kale wuxuu ka dhacay Nahawand Iraq zamankii saxaabada Nu'man ibn Muqarrin رضي الله عنه دقالكي وقاميني دقالكي ويناء فرسك لغو فرطي معركة النهاوند أيا خطة سوكلا كدا عضي عيدا كوحا وقاميني نعمان بن مقرن وحانا تكتيكا انسحابك تدريجي أهسميي صحابي الأورنجري القعقاع بن عمرو رضي الله عنه القعقاع بن عمرو التميمي مركز سيدي بو سميي خطة اللباد دي بو قراشو سميي مركز dib u gurashadii markuu sameeyay oo dib u soo gurtay ayuu ishaaradii saddexaad siiyay ninka la yiraahdo Quds oo ciidankii mihigaanka ahaa ee dhinac walba buuraha jiray ayaa soo degtay katiiba ayaa marka hore hormartay oo waxay soo xirtay toggii bay soo xirtay toggii markay isku soo xirtay ciidankii tataarku wuxuu galay dhexbartan ku galay toggii uu ku aruursan yahay makhraj kale ma jiro dhinacii makhrajka ahaa ama uu ka bixi lahaana waa la soo xiray goor dambe ayuu marka ku baraarugay katabqa nin khabiir u ahaa laakiin
إذا جاء القدر لا ينفع الحذر حذر وحوما ترمان هذه قدر تتماد يا نينكاسو أرنكاسو ضعفي بالفعل مركا غوردم كبرارو وحي حوك سارين مركا ميمندي أي حوك سارين ميسردي مسلمين تي كنت شدن إنه سوجب صدان بالفعل ويصول لعيان ومسلمين تيرين عبيد إحدى قدال بيوصو قرتين قال مركز وصو قرتين هلقا دقالكم مريو طبعا ويسبدلي كرا دقال وحيسو بدلي كرا إنه بدح إذا أنت سوجب صدان مسلمين تيرين إحدى كجرت أول لقليو إيه ماشي قولة تتارك أول أوقلين لهاي وعيدن كتتارك حقنا كجر وحقنا كجر مركا هلقا مريسو قدس كوفيدي أنت توري أيو دقالك صادح قلي وبقركي دقالك هوغامينيي بقركي مصر نعها دقالك بصادح قال اسكو صادحتو كلمتيسي مشهور كهيدا تاريخ ذا اوغا شيء ايونا كل واقي واسلام ايو هل مريتو عيدن كو دمي مقلايو كل واقي ايو فرسكيسي لا صادح قال دقالك markuu maysaradii soo xoojiyay katiibadii isaga la socotana ay soo gashay ciidankii waxa galay moral cusub aad iyo aad bay maaragtay juhdigoodii u badliyeen dagaalkii baa sii kululaaday sii dhanaanaaday nimankii waa iska liiciyeen markay iska liiciyeen ciidankii tataarkuna uu dhexda ku jiro si xunna loo saafayo go'doonna ay ku jiraan waxay noqotay inay dagaal kama dambaysa ay dagaalamaan halka markay xaaladdu marayso nin kamida umaradii mamaaligta oo la yiraahdo Jamaaladdiin Aqoosh ninkaasu inta dhex jiray tataarkii ayuu wuxuu u socday meelaha u meeraysan dagaalyahanna uu ahaa wuxuu u tagay qaa'idkii tataarka ayuu meeshiisii gaaray muaskarkiisa hal mar buu seefta ku dhiftay madaxiiba dhul bannaan ku tuuray tataarka markay arkeen katabqa oo madaxiisii halka ku duulay waa ninkay caabudi jireen oo ka dambeeyeen 40 sano dagaalkooda hogaaminayay معنوياتكود iyo moralkood hal mar buu wajabay waa inhiyaar خلاص waxay noqotay jid say ku furan lahaayeen inay ku dadaalaan istimaata meesha ugu dambeysay iyo yaani naf geeriyonol inay galaan sidii ay meesha uga baxsan lahaayeen طبعا انت تاسو aanay dhicin Qudus rahimahullahu ta'ala inta tariya ayaa la eegtay sahamkii isaga kuma dhicin yaani fallaar isaga kuma dhicina faraskiisii bay ku dhacday faraskiisii markay ku dhacday faraskii dabcan uu dhacay lugtu ku dagaalamay dabcan arrinkaasuna qudwu aha oo uu tusinayo askartiisa boqorkii ka dhex dagaalamaya waxay siinaysay macnawiyaad weyn inaanu isagu dib u soo dhigayeen sida hadda boqorrada iyo muxuu ahaay ru'aasada hadda jiro iyagu intay dib u soo dhigaan ciidanka yiraahdo orday soo dagaalama idin kaligin taas ma aha يعني قدوة ما مركز تاسو waxay siisay inuu ku dagaalamo ilaa faras loo keeno xataa fardihii kaleeto rag inuu ka dijisto wadiiday ninba uga dagay faraska wuxuu yiri maya lugtiisu ku dagaalamay ilaa faras loo keeno katabqa markuu dhacay oo meesha uu ku dhacay ciidankii waajabay inay meel un ka baxsadaan bay raadiyeen aakhirkii bacda juhdin ayay waxay furteen wadayar oo dhinaca Baysaan magaalada Baysaan baa waxay u jirtaa Cayn Jaalut 20 kiiloomitir xagga waqooyi halkaasay u jabsadeen ciidanka muslimiintuna waxay la raaceen seeftay la daba raaceen dhaawac dhimasho ilaa dhimashadoodii ay noqotay sidii taalooyin oo kaleeto bay togi ka buuxsantay meydkoodii baa toga ka buuxsamay waxa fakaday ciidan aad u kooban oo 20,000 aan ka badnayn ayaa halka u cararay ciidanka muslimiintuna way ka daba qaateen waxa la isla gaaray Baysaan 20 kiiloomitir markii la isciirsanay oo Baysaan ay gaareen ayay soo jeesteen mar kale markay soo jeesteen saf labaad bay galeen dagaal cusub oo kii hore ka daran ayay galeen heer ay ku sigteen muslimiinta inay soo liiciyaan halkaas way markuu leeyahay Sayfuddin Qudus wa islaama وكدفته مر صدح جر انت سجودي اللهم يا الله انصر عبدك قدس على تتار إله أدونك قدس تتارك إله قولك سي سداس با إلهي سبحانه وتعالى نصر الكسي عيدا كاس تتارك تراديس انت أهيد وحير أياك فكضي بقول يسديتك يكون
ama 200,000 wax yar oo fara ku tirisa ayaa ka tagtay nihaayatul ustuurah bay noqotay ustuuradii ama mucjizadii la dhihi jiray tataar ciidankoodii u xoog badnaa ee shaam iyo masar iyo faris iyo dhulkan turkiya waxaas qabsaday halkaas baa lagu baabi'iyey oo lagu tirtay guushii ugu weyneedna muslimiinta ay ka raacday mar dambena tataarku kuma fekerin inay dib ugu soo laawdaan ilaa bacda taqriiban 140 sano kadib ayay dhulka muslimiinta mar kale soo unguriyey mar dambe ma soo unguriyin xataa holaako oo jooga hamadaan jooga ama tabriis dib inuu u soo qaado dagaal xataa kuma fekerin way jabeen tataarkiina halkaas ku dhammaaday waxaan ku soo khatimaynaa marka dhowr darsi oo duruusta iyo casharada laga qaadanayo maarakadaas iyada ah darsiga koowaad waxa weeye dabcan taanan duruusta u gelin markuu dagaalka maalintaas soo dhammaaday ciiddii wuxuu ku ciiday dimashq buu ku ciiday tataarkii shaam yilay oo dhan buu ka safeeyey masar iyo shaamna dib ayuu u mideeyey sayfadiin qudus raximahu llahu tacaala markii ay muddo dheer kala maqnaayeen darsiga koowaad waxa weeye oo aan ka qaadanayno walaalayaal muslimiintu markay ilaahay u noqdaan oo ay qaataan asbaabtii la faray inay qaataan iyo diyaargarowgii la faray inay qaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala nasrigiisa wuu siinayaa walow wakhti kooban ba ha ahaato 56 iyo 600 ayaa lagu jebiyey baqdaad la qabsaday 58 iyo 600 ayay macrakadaas ahayd 2 sano u dhaxaysa xaaladda muslimiintu isku bedeshay arrinka darsiga labaad waxa weeye dagaalku waa dagaal diiniya weyn dagaalkaas tataarka iyo nasaaradu waa isu soo bahaysteen weligiisna wuxuu ahaa dagaalka muslimiinta lagu soo qaadaya dagaal diin ku salaysan ilaa maantana waa dagaal diin ku salaysan ma aha wax kaleeto marka arrinka in dadka muslimiinta ay ogaadaan oo gaaladu waxayan aqbalihayn wujuud islaami ah oo muslin ah oo islaam xambaarsan inuu jiro adduunka ma rabaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu qoray islaamkaas inuu baaqi noqonayo dadna haysanayaan siraacu marka saas u taagnaanaya darsiga saddexaad waxa weeye muslimiintu inay ka guulaystaan cadow waxyaalaha yacni muhiimka u ah waxaa ka mid ah xaaladda niyadjabka iyo moral xumada iyo cadowgu inuu wax walba qabsanayo inay ka baxaan xaaladdaas in laga baxo oo ruuxda moralka iyo rajada inay soo gasho si ay cadowgooda ula diriri karaan darsiga afraad waxa weeye macaarigta faasilka ah ee muslimiintu ay isugu tagaan oo juhdigii shaam iyo masar iyo u midoobay waxay keenaysaa cadowga in dhaawac weyn oo aanu ka soo kicin la gaarsiiyo oo aan ahayn yacni dhagax tuur yaryar iyo waxyaala aan ahayn si fiican in cadowga loo jebiyo oo mar dambe muddo dheer aanu ku soo fikeri karin macaarigta faasilka icdaadka fiican loo sameeyaana saasay ku fiican yihiin waa darsi weyn darsiga shanaad عين جالوت طبعا صانر وحي أهيد دلشدي دولة مماليكتا الله بقول 7 سنة دولك حكمتي درسك اللي حاد وحوي dad kan boqorada ama amiirada ama maaragtay madaxda oo muslimiinta aan u hogaaminayn cizo iyo sharaf iyo diin saaxada way ka baxayaan markay ay timaado ummad iyadu doonaysa islaamkeeda inuu ku noolaato islaamkeedii ku qanacsan islaamkeedii rumaysan marka la helo dadkaas umadaha meesha way ka baxaan darsiga toddobaad waxa weeye maxay tahay sababta waxaynu arkaynaa had iyo jeer gaaladu inay xoog saaraan meesha dad nool laga helayo meesha dad jihaad iyo ummad islaam inay xukumaan ku sifaysan ayay xoogga saaraan sidaas darteed waxa weeye masar meesha ay rakiseen bay ahayd markaa tataarku meel kastoo ay wax ka dhaqaaqayaan miyafarqiin oo magaalo keliya ahayd oo shaam ka mid ahayd oo keligeed diiday tataarka inay isu dhiibto iyadunba xoogga markaa la saaray waa darsi weligiis jira oo weligii socda darsiga sideedaad waxa weeye waxaa ka dhashay cayn jaaluud tataarkii inay islaamkii bartaan oo islaamkii soo galaan oo ay iyaga ka dhashaan qaar badan oo tataarkii la dagaalama oo tataar ah
walidaalika baybaris markii dambe uu xukunka isagu qabsaday tataar badan ayaa la galay dagaaladii holaako iyo qayrkiisba looga hortegay darsiga sagaalaad waxa weeye ahamiyadda uu leeyahay iimaanka iyo dowrka culimada si intisaar xaasim ah macrakada looga gaaro haddii ay doorkooda qaataan haddaan iimaanka iyo yaqiinta lagu kicin quluubta ma jirayso nasri la gaaro waxa kaleeto oo muhiim ah waa qodobka tobanaade muhiimadda ay leedahay inay si isula jaan qaadaan culimada iyo umarada iyo muslimiinta guud ahaan ay isla jaanqaad leeyihiin oo mid walba dowrkiisa oo meeshiisa ka gudanahay ama haddii iyagu kala jabaan oo muslimiintii culimadoodii iyo umaradoodii laba dhinacay iyagu cadow isu noqdaan xaaladda muslimiintu farahay ka baxaysaa wax badanna lama gaaraayo ummadda lagaga difaaco darsiga 11aad waxa weeye muhiimadda ay leedahay midnimada dadka muslimiinta ah ummadda mutafariqa ah ee kooxda ah ma guulaysato taariikhda laguma hayo taariikhda muslimiinta laguma hayo walidaalika qutus markii uu qabsaday maalintii u horreysaba wuxuu bilaabay inuu kelimadda muslimiinta ururiyo masar gudaheed inuu ururiyo uma shaam iyo masar ururiyo uma saas uu kaga hortago gaalada uu kaga hortago inay muhiim tahay ruuxa jihaadka ummadda in la geliyo inay muhiim tahay nabadda iyo heshiisyada gaaladu ay baaqayaan iyo salaamka iyo waxaasna waxay iman karaan iyadoo muslimiintii la saafayo la baabi'inayo markii dadkaasu ay ka baxaan dhulka muslimiinta oo muslimiintu ay xor u yihiin dhulkooda markaas ka bacdiya nabadda iyo xaaladaheedu ay timaadaa waxaa muhiima oo darsi muhiima ah in diyaargarowgu uu yahay arrin waajiba oo si wanaagsan loo diyaargarow markii la rabo dagaal gaalada in lala galo quds raximahullahu tacaala macrakada wuxuu u galay icdaad jayid ah ayuu asbaabtii maadiga ayd buu qaatay hubka diyaargarayntiisa buu qaatay tababarkii buu qaatay wuxuu qaatay sufuuftiisii midaynteedii buu qaatay wuxuu qaatay khudadkii munaasibka ah inuu dhigo wuxuu qaatay makaankii munaasibka inuu doorto wuxuu qaatay diblomaasiyadii iyo siyaasadii inuu midayo xataa gaaladii qaarkood uu la galo heshiis la galo wuxuu bilaabay jawigii inuu tahayeeyo oo uu u diyaariyo wuxuu bilaabay cuddadii inuu diyaar marka qofka doonaya dagaal inuu galo isagoon cuddo diyaarsan oo dhinacii siyaasadda dhinacii iqtisaadka dhinacii jawiga dhinacii ummadda midaynteeda dhinacii sufuufta dhinacii tadriibka dhinac walba aan ka gelin waxa weeye waahim inuu gaaro nasri waa wahmi buu ku noolyahay riyuu ku soconaya haddii uu doonayo inuu isagoon waxba icdaada samaynin inuu gaaro waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waacidduu lahum ma statactum min quwatin wa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wacaduwakum ma statactum من قوة مركو إلهي قوة سوى قوة متعددة وقوة هبكة وقوة تدريبك وقوة سياسية وقوة اقتصادية وقوة ضدك وقوة تأييدك وقوة مدنمضة وحصل وقوة للضياء إعداد كاسنا مهم وحكلته مهمة أفضل طبعا أهمية القدوة قدوة dadka qudwada oo culimada umarada dadkaas inay ummadda iyagu hogaamiyaan boqolaal khudbadood ayay ka qiimo badan tahay qodob aad muhiim u ah oo 15 darsi laga faa'iideysana waxa weeye nimankaas nasaarada ah taxaalufka lala sameeyo gaalada weligiis ma keenin dad uma keenin xataa adduunyada guul uma keenin qolada la sameysata taxaaluf gaalada dhul muslimiin si ay ugu soo hogaamiyaan ama ay xogaa xukunka ugu haystaan ay ugu siiyaan keliya weliga taariikhda islaamka lama sheegin nin intuu gaalo gacanta u galay oo soo hogaamistay oo muslimiinta ku soo hogaamiyay oo guuleystay taariikhda islaamka lama sheegin oo aan dulli ku damayn lama sheegin taariikhda islaamka في الأندلس وهنا كما نرى في أمراء الشام لمن كتتارك ليه شيء كل عقد مريان تتارك مركز دم يقال لا يقع يبركدي ما أنت نواسد وكله كوا قال ليه شيء قالوا بالله ينس يبركدي لحية طبعا وحوي شورى حقيقية وإني جرتها ضد المسلمين تدعوها وإني جرتها شورى حقيقية يعني قطس وحدك صار نقطة والله wuxuu ururinayaa dadkii umaradii culimadii dadkii isu keenaya markaasoo tala weydiinaya arintii iqtisaadka markii la urinay arintii hubka markii la urinay arintii dagaalka arintii asrad arin walba wuxuu sameeyay qofkii marka isagu aan wada tashiga qaadan oo shuurada xaqiiqiga aan qaadan
waxaa ka lumaysa boqolaal iyo malaayiin daaqaad ah oo xoog ah oo cilmi ah oo ra'yi ah oo shacabkiisa iyo ummaddiisii ah ayuu luminayaa haddaanu la tashan wuxuu luminayaa intaasoo daaqaada uu u baahan yahay oo ummaddiisa ka mid ah ayuu luminayaa hadduu isu malayo markaa isagu inuu kaamil yahay khalaas isku filan yahay arrinkaas wuxuu kaloo dhalinayaa dadkii uu la tashan waayey oo ahlulcaqliga ahaa oo ahlulkhibrada ahaa oo ahlulcilmiga ahaa oo ahlutajribada ahaa nooc walba oo tajribe ay ku leeyihiin in iyagana qalbigooda ay wax galaan maxaa yeele taladii baa laga qaatay sooma waa lala tashan waay marka qalbigooda iyagana daqaa'in bay gelinaysaa waxay kaloo samaynaysaa qofkanu inuu ku dhaco akhta' mutataaliya inuu ku dhaco maxaa yeele taladu tajaarib badan cilmi badan khibrad badan ayaa lagugu siyaadinayaa waxyaalo badan ay kuu siyaadinaysaa waxaa kale oo muhiima oo darsiga laga qaadanayo uu yahay tawsiidu اlamri liahlihi inay tahay qadiya fii qaayati alahamiya laa taqbalu mujaamala ma aqbasho markii masaalixda ummadda laga hadlayo in qof walba meesha uu munaasibka u yahay loo dhiibo waay meesha caskarinimo u baahan ninka qaa'idka ah ee geesiga ah ee khibradda leh ee dagaalka yaqaan ee xeeladiisa yaqaan ee tajrubada dheer u leh ninkaasaa loo dhiibaya ee xirfadda u leh waxka kaasaa loo dhiibaya looma dhiibayo nin aan aqoon u lahayn ama wadaad miskiin ahoo isagoo kitaab keliya akhrin yaqaan wadaadka meel kalean uga baahannahay kitaabka inuu akhriyan uga baahan sidoo kaleeto imaamnimada looma dhiibayo nin isagu xirfad dagaal yaqaan nin walba meeshiisa waay walidaalika waxaad arkaysaa qudus raximahu allahu tacaala beberis oo uu og yahay inuu khilaafsan yahay isaga uu mucaarid ku yahay ayuu qaa'idkii geeshka horraanka ka dhigay maslaxaddiisii shakhsiga ahayd oo ninkaani inuu khilaafsan yahay wuxuu uga tanaasulay maslaxaddii caamka ahayd ee ummadda maxaa yeele ninkan ummaddaa ka faa'iidaysanaysaa laakiin shakhsi ahaan isaga kama faa'iidaysanayo maxaa saaxiibkiisna maaha isku xisbina maaha laakiin ummaddu xooggiisa iyo khibraddiisa iyo cilmigiisa iyo tajrubadiisa iyo geesinimadiisa ayay ka faa'iidaysanaysaa marka ninka mukhliska ahi waa ninka qadiyadiisa caamka ah uga tunaasila qadaayadiisa khaaska ah nin isagu ilaashanaya qadiyadiisa khaaska ah isaga iyo nawaasicdiisa iyo hawadiisa ilaashanaya saaxiibkay fulaan ina adeerkay ina xilkay kan aniga ila xisbiya kan aniga ila mahalkiya ummad saasi meel ma gaarto ogood nin walba meesha uu munaasibka u yahay waa in la dejiyaa oo la dhigaa arrinkaas waa darsi muhiima taariikhda inuu ka faa'iidaysanayno saynu maaragtay macrakadan aynu ku arkayno waxaan ku soo khatimayaa darsiga ugu dambeeya oo ah az-zuhdu fi dunya wa ahamiyatuhu fi al-jihad haddii dadku ay doonayaan lacag iyo kuraas iyo jagooy iyo muuq inay muuqdaan iyo in la sheego ma gaari karaan meel ummadna ma dhisi karaan maxaa yeele nebiga alayh slam waxa leeyahay alrajulu yuqaatilu shajaacatan wاlrajulu yuqaatilu liyudkara wاlrajulu yuqaatilu casabiyatan ayu dalika fi sabiili اllah qala man qaatala litakuna kalimat اllahi hiya alculya fahuwa fi sabiili اllah wixii kaloo dhan nebigu bannaanku ku tuuray badduu ku daray marka sayfadiin qudus raximahu allahu tacaala muxuu ku guulaystay oo alkhaliifatu almustacsim alcabaasi oo bagdaad khaliifadeedii ah lagu jebiyey maxaa khawaarismi lagu jebiyey maxaa fulaan wacallaan lagu jebiyey muxuu sayfadiin qudus ku guursan ma huwa sabab maxay tahay sababtu waxaad ka dhadhaminaysaa taariikhdiisa iyo siiradiisa heer walba la soo istaago inuu yahay nin aan doonahayn adduunyadan mulkigeeda iyo waxba aan ka doonahayn aan isku dhajinayn xukunka wuxuu yidhi ciddaa rabtaan u dhiiba dagaalku ha dhammaado ciddaa doontaan u dhiiba ana laa yuhmini bas dagaalkan ha la galo xaasim buun ahaa markii la yidhi xoola ha la keeno wuxuu yidhi waxaan leeyahay o dhan baytilmaalka ha lagu daro markay soo gaartay manaasibtii iyo dadkii ha loo qaybiyo mucaaridiintiisii o dhan uu keenay kullu meelihii ay ku munaasibka ahayn buu nin walba u dhiibay laa yuriidu alxukm linafsihi walidaalika sidaasuu ku tegey 11 bilood isagoo shaam ka soo noqday ayaa la dilay raximahu allahu tacaala raggii asxaabtiisa qaar ka midaana dilay maca alasaf waa wax taariikhda ku jira laakiin waxa weeye azuhdu fi اdunya وفي المناصب وفي الذكر وفي كل شيء أعراض الدنيا إنانو كجري دادك مجاهدين تأهنية دودة أيا لو باهن يهسي أقول استان
سيقولستان مجرد إنه أهل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعيري محو في عيه إنك مجاهد كأه أندوني هين ذكري إن كان أميرا فهو أمير إن كان في الساقة فهو في الساقة هدي لقد دقو قائد بكو شقينا هدي لقد دقو كان إلى كو شقينا أوران ما يعني محا إلى الله يقدق أنا وحنا أبدولنا جنرال بنا سيلا يقدق كرانيكا محوها هاي مجاهد بات هذا زوج جنة مدونيس هذه جنة دونيس حقنا وكجه هذه كرتا أنت وكجه هذه كرتا خالد بن الوليد رضي الله عنه يسوي قائد الجيوش يا لسود جيو عليه كسودك حين أنا جندي أنا عسكري بقدق على ما ماشي عسكري بقدق على ما لكن أنا هدين الله يراهض هذا ماشي ولا قاعد عسلي جبهت بقصنا يا مركز صورنا أنا حاجة كصوت على ما أنا يدينك أنا طالع حاسب لكم الجار هذه كلها نوازع بشرية نوازع دنيوية وما المسلم كم أقول يستوحس وحى إلهي أمكنية أقول يسته وأمته وحطره ضدك إخلاصا لله كتاي إلهنا سبحانه وتعالى أي يقان قفك إلهي درتس جهاده والله أعلم من يجاهد في سبيله ومن يكلم في سبيله النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من كلم يكلم في سبيل الله يعني قف مجر أدعو عمه إلهي درتس ورخص قدر النبي والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلهي ويقانا كان إلهي درتس أدعو عميه إيه كان إلهي درتس أدعو عميه الأصل يا إخواني قلبك إنها تكسرته ويوح الله له هواء الدنيا وأنا قلبك كسرته وح الله له هواء الدنيا الدنيا سئنا إلهي درتس أشقيسه أما دعوة كشقي أما جهاد كشقي أما عمل كشقي أما خير كشقي أما إغاثة كشقي أبواب الجنة كثيرة جدا أليس كذلك؟ نعم أبواب الجنة كثيرة لكن بابك دون تطبع إخلاص باكوريال ميل أدو دافتم عليه نيد هذا مركب وإن هذا هد يجر إلى لسا سداس بلوغ لسنيا سداس أيا لوغ لسنيا ولذلك مركان تتبعون دمان منك قادتها وسام كقول سيف الدين قطز في عين جالوت صلاح الدين الأيوبي في حطين يوسف بن تاشفين في الزلاقة مركان وظفيرينه يا ورقان الدنيا طمع وين وجرين بيستينكم ابنائي لواها ساس درتت بإلهي أمكني أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا اللهم أعدهم إلى بلاد أذلة صاغرين اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين أذلة خاسئين اللهم لا تقم لهم راية اللهم لا تقم لهم في بلاد الإسلام راية اللهم لا تقم لهم في بلاد الإسلام راية اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوبنا وأن توحد صفوفنا وأن تصلح ما بيننا اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم عليك بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومشايعهم اللهم عليك بأعداء الإسلام من المنافقين والكافرين ومشايعهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم بأسك ورجسك إله الحق اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يصدون عن سبيلك اللهم سلط رؤساءهم على شعوبهم وسلط شعوبهم على رؤسائهم اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا قوي يا عزيز صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم